kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada bodcastiga muruq maal halkan oo aan kusoo gudbino talooyin wax ku ool ku ah iyo xeelado kuwaas oo kaa caawinayo inaad maareyso lacagtaada iyo inaad gaartid xorriyad dhaqaale. qaybta maanta waxay ka kooban tahay abuurista qorshe maaliyadeed oo shakhsiyadeed oo markaasi kuu shaqeeya. haddii aad hadda bilaabayso ama aad raadinaysid inaad hagaajisid xaaladaada dhaqaale, qorshe lahaanshuhu waa wax aad muhiim kugu ah. Talaabada koowaad, qiimeey xaaladaada dhaqaale ee hadda. Talaabada ugu horeysa ee abuurista qorshe maaliyadeed ee guuleysto oo markaas shakhsiyadeed waa inaad qiimeysaa xaaladaada dhaqaale ee iminka. Tani waxaa loola jeedaa in aad si dhow u eegto dakhligaaga shakhsiyadeed, kharashaadkaaga, deyntaada iyo hantidaada. Waa muhiim in naftaada ay daacad ka ahaataa xaaladaada dhaqaale, xitaa haddii aadan hadda joogin meesha aad doonaysid in aad gaartid. Ku bilow dhammaan liiska kharashaadka biilasha oo ay ku jiraan kirada guriga iyo gaadiidka kirada kaaga baxo, kharashaadka raashinka iyo biilasha kale ee joogtada ah. Talaabada labaad, dejiso yoolkaaga maaliyadeed. Talaabada xigta waa in aad dejisid yoolkaada dhaqaale. Tani waxay noqon kartaa wax kasta oo ka bilaabmaya bixinta deyn lagugu leeyahay ama dhisidda sanduuqaaga gargaarka degdega ah. Markaad gaarto yoolkaaga, la imow tallaabooyin yaryar. Markaad garatid yoolkaaga, la imow tallaabooyin yaryar oo la hiigsan karo. Tusaale ahaan, haddii uu hadafkaaga yahay in aad bixisid lacag deyn ah oo 10,000 ah oo lagugu leeyahay, dejiso yool aad ku bixin karto bishiiba 1,000 muddo 7 bilood ah. Talaabada saddexaad, sameyso ama dejiso miisaaniyad shakhsiyadeed. Hadda oo aad ogtahay xaaladaada dhaqaale iyo yoolkaaga oo ah meesha aad hiigsanaysid xagga dhaqaalaha, waxaa la joogaa waqtigii aad miisaaniyad abuuran lahayd. Miisaaniyaddu waxay u dhigantaa qorshe loogu talagalay sidii aad ugu qoondeysan lahayd dakhligaaga si loo daboolo kharashaadkaaga una gaari kartid himilooyinkaaga dhaqaale. Ku bilow adigoo kharashaadkaaga u kala soocaya qaybaha muhiimka ah iyo kuwa aan muhiimka ahayn. Kharashaadka muhiimka ah waa waxyaabaha ay ka mid yihiin kirada guriga, biilasha joogtada ah iyo kharashaadka raashinka. Kharashaadka aan muhiimka ahayn waa waxyaabaha ku baxo sida cunista bannaanka, madadaalada iyo waxyaabaha soo iibsashadooda aysan muhiimka ahayn. Qoondee dakhligaaga si aad marka ugu horeyso daboolshid kharashaadkaaga muhiimka ah, kadibna aad u qoondeyso lacag dhanka yoolkaaga maaliyadeed ah. Ugu dambeynna aad u qoondeyso lacag dhanka kharashaadka aan muhiimka ahayn. Raadraac ku samee kharashaadkaaga waa talaabada afraad. Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee markaas aad u dejinaysid miisaaniyadda ayaa waxay tahay inaad raadraac ku sameysid kharashaadkaaga. Taas micnaheedu waxaa weeye inaad raadraacdid lacag kasta oo aad bixinaysid si aad u aragtid halka ay lacagtaasi marayso iyo isbeddelka aad ku samayn kartid haddii aad u baahatid. Waxaa jiro applicationo fara badan oo kaa caawinaya arrintan oo ah sidii aad ula socon lahayd kharashaadkaaga, iyo sidoo kale waxaad isticmaali kartaa warqad iyo qalin adigoo markaasi qorayo oo la soconayo dhammaan waxa kaa baxaya. Talaabada shanaad ee ku hirgelin karto qorshahaaga waa inaad u hagaajisaa qorshahaaga sidii loo baahan yahay. Ugu dambeyn, waxaa muhiim ah inaad noqotid qof dabacsan oo aanan kakanayn si aad u hagaajisid qorshahaaga sidii loogu baahdo. Nolosha sideedaba ma ahan wax la saadaalin karo. Xaaladaha dhaqaale ayana waa sidoo kale oo waa ay isbedelaan mar kasta. U diyaargarow inaad isbeddel ku sameysid miisaaniyaddaada iyo hadafyadaada dhaqaale intaba haddii aad u baahatid. Intaas ayaan kusoo koobaynaa bodcastigii muruq maal ee aan idinkula wadaagayay talooyin markaasi wax ku ool ah kobcinta iyo maareynta dhaqaale ee shakhsiyadeed si aad u gaartid xorriyad dhaqaale oo markaasi kugu filan. Waa walaalkiin Daahir ilaa iyo bodcastiga dambe aad ayaan idin salaamayaa.